ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa awoodiisa iyo kursigiisa ku fadhiyo u adeegsaday inuu faragelin ku sameeyo maamulka deegaanka Garisbaalley ee duleedka magaalada caasimadda ee Muqdisho oo ay isku hayaan beeshiisa iyo beesha Abgaal. sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen Daahfur TV, Khayre ayaa 3 goor ishortaagay gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Garisbaalley oo uu magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow, sababtuna ay ahayd in qofka la magacaabay uu ka soo jeedo beesha Abgaal. arrintan magacaabista gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee deegaanka Garisbaalley ayaa lagu hadla gashay xaalad qabiil oo xoogan iyo nin jeclaysi, waana deegaan ay isku haystaan beesha murursade ee Khayre iyo beesha Abgaal. odayaasha iyo maamulka degmada Daynile ee Muqdisho ee waxay deegaanka Garisbaalley ku yaqaanaan inay tahay wax ka tirsan degmada Daynile, halka odayaasha Abgaal gaar ahaan Wacaysle iyo Wacduudan u ooleynayaan in Garisbaalley noqoto degmo ka tirsan gobolka dowladnimada sida waxay tahay waxay ka bilaabataa dad iyo dhul iyo deegaan isku yimid. dadkana waa qabaa'il isku yimid. qabiil kastana wuxuu leeyahay deegaankiisana haddii la isku fahmo waa wixii lagu heshiiyay xararka nin kasta deegaan uu leeyahay deegaankiisana oo laabanaa. beesha Cabdicaalin waxaan u sheegayaa 4 sano ka hor dhibkan ku dhacay madaxa loo salaaxay. marka madaxa loo salaxana marrabaad waa tii sii gaartay. aniga duqiina madax saacad in qaadi maayo. waxaan idin qaada xaqa leedii inay heshiin hadaa weysiin waxaan idin kula ballamaa nin kasta oo beesha Cabdilcaalina dhul uu leeyahay inuu noqdo dhulkiisa. Naadir sanadihii ugu dambeeyay beesha Abgaal gaar ahaan Wacbuudan iyo Wacaysle ayaa Garisbaalley geliyay lacag xad dhaaf ah kana sameeyay dhismayaal iyo xarumo degmo, saldhig booliis, isbitaal, ceelal iyo weliba deegaano kale. gudoomiyaha Garisbaalley waxa uu ka yimid Abgaal gaar ahaan Daa'uud oo ka tirsan Wacbuudan, halka ku-xigeenka koowaad oo amniga iyo siyaasadda laga keenay Abgaal Wacaysle ah. arrintan waxaa lagu weedeeyay inay ku leeyihiin xildhibaano la taliyaal ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, gudoomiyihii xilka laga qaaday ee maaliyadda gobolka Banaadir iyo saraakiil kale. geesi kale waxaa gaar socda gudoomiye Yariisow, odayaal iyo siyaasiyiin kale ee deegaan. Cali Xasan Cali oo ahaa gudoomiyihii ugu dambeeyay amniga iyo siyaasadda deegaanka Garisbaalley ayaa ah wiil dhalinyaro ah, aqoon-yahan ah oo deegaanka u dhashay, aadna u kala yaqaana degmada Garisbaalley. odayaasha beesha Abgaal ayaa Khayre ku eedeeyay in kursiga uu qaranka ugu fadhiyo uu uga eexanayo beeshiisa, iyagoo waxyaab leh ku tilmaamay inuu doonayo inuu beeshiisa kursiga ka siiyo deegaanka Garisbaalley. inkastoo aysan deginin deegaanka Garisbaalley beesha uu ka soo jeedo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya